iyadoo in khayrka laga qayb qaato la isna caawiyo ay tahay mid haboon eebana subxaanahu wa tacaala uu ina faray maadaama aynu nahay dad ku aftirsada diinta islaamka ayaa haddaba wariye Nuux Cumar Kadiye oo maalmihii ugu dambeeyay ku mashquulsanaa sidii loo caawin lahaa walaal muslim ah oo ku tabaalaysan magaalada Boorame ee xarunta gobolka Awdal ayaa maanta waxa uu gaarsiiyay deeq lacag ah oo loo soo wakiishay wariye Nuux Kadiye deeqdani ayaa iskugu jirtay mid laba qaybood ah iyadoo hooyo ku dhaqan dalka Switzerland ay soo gaarsiisay qayb ka mid ah deeqdaasi lacagta dhanka kalena iyagu waxaan meesha ka maqnayn lacag ay isku soo dardareen qayb ka tirsan dhalinyarada ku dhaqan magaalada Boorame soo gaarsiiyeen wariye Nuux Cumar Kadiye oo isagoo ahaa shakhsiga kaliya ee xoogiisa u horay sidii loogu caawin lahaa wiilkan walaalkan muslimka ah ee ku xanuunsan magaalada Boorame daawadayaal saad arkaysaan waraaqadan waxa ku qoran dhowr qof oo dhalinyarada iyo shacabka ku dhaqan magaalada Boorame oo iyagu deeq lacag soo gaarsiiyay walaalkeen Boorame ku xanuunsan aadan maxamed cumar iyo gabadh hooyo muxsinad ah oo ku dhaqan dalkaasi Switzerland oo iyaduna $50 Mareykanka soo dirtay walaalayaal kulli bini'aadamku inuu wax isu qabtaa way wanaagsan tahay marka walaalayaal هذا العقل هو بهاي وحي تبرعنا هو بهاي لكن عافمات كيس واحد قارشين إنه درك دبدي سأين قدرنا أو أين ولا الكل يقولوا كرنا إلا سعاوينا ولا يلوي ونحسن تهاي ما أنت نضيق لسان سوق جرتيني تاريخنا يكون بيعن تهاي شغالة لبعضنك بالشنات وكان هذا آدن محمد عمر oo loo yaqaan Sheekh oo isagoo ah wiilka dhalinyarada ah ee ku xanuunsan magaalada Boorame oo uga mahad celinaya gabi ahaanba dadkii soo gaarsiiyay deeqda allana uga baryayay eebo ugu daro miisaanka xasanaadka aadano walaal deeqdaas aan soo gaarsiinay $50 waxay ka timid walaal gabadh muxsinad oo ku dhaqan dalkaasi Switzerland lacagta kalena walaal waa shacabkii kale reer Boorame oo iyagu saadka igu soo diray oo qof kasta intii karaankiisa soo diray ku $20 soo dira ku $50 soo diray iyo ku $1 soo dira marka walaal maxaad ugu baaqaysaa shacabka iyo ganacsatada iyo ummadda kale ilaahay idinkii waxaan rajaynaynaa inay caafimaadkaaga iyo inay ku soo caawiyaan waxaan ka codsanayaa ummadda Soomaaliyeed iyo ummadda Nabi Maxamed meel kasta joogan ku ganacsadaa iyo ku kalaba inay soo caawiyaan oo la idiro dhaqtar dibadda dhibaatan qaba dhibaatada in laga soo caawiyo ummadda Nabi Maxamed waa inay caawiso weeyaan marka walaalahay ay soo caawiyaan meel kasta joogan ku ganacsadaa iyo ku dalka jooga ku dibadda jooga ku ay soo inay soo caawiyaan baan ka codsanayaa walaalka ummadda Nabi Maxamed walaalayaal aadan baaqaas u idin diray bal qof kasta oo muxsin isku dayo inuu bal xooga lacag dalka dibadiisa ugu tagi karo isku soo wada duubo shalay ayay ahayd markii deeq lacag ah oo noocan oo kale ah u gaarsiiyay wariye Nuux Cumar Kadiye walaal aadan maxamed cumar oo loo yaqaan Sheekh oo isagoo ah wiil dhalinyaro ah oo xanuunsanaya una baahan in la caawiyo in khayrka laga qayb qaatayna waa mid gabi ahaan bay noo nuuraysa qabrigeena miisaanka xasanaadkan uu inoogu dari doono eebaweyna subxaanahu wa tacaala wa jaamacadda Space Channel Boorame